madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta safaaradii hore ee Soomaaliya ay ku leedahay dalka Kenya oo dayactir ballaaran lagu wado. danjiraha Soomaaliya oo fadhiya dalka Kenya Jamaad Maxamed Xasan iyo ku-xigeenkiisa ayaa xarunta safaaradda ku soo dhaweeyay madaxweynaha, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, wasiir dowlaha arrimaha gudaha, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. madaxweynaha ayaa kormeer ku tagay dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay safaaraddu. dhismaha safaaradda waxaa lagu wadaa dayactir iyadoo bilaha soo socda la qorsheynayo in dib loo howlgeliyo xaruntan oo ah mid aad u ballaaran. madaxweynuhu waxa uu kormeeray dhammaan qaybaha ay safaaraddu ka kooban tahay oo ay ku dhex jirto qunsuliyadda guud oo ku dhex taala safaaradda. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dib u howlgelinta safaaraddan ay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya iyo dowladda Soomaaliya ay ku bixisay waqti aad u badan. sidoo kale waxa uu mahad celiyay dadkii ka qayb qaatay dacwadii dib loogu soo celiyay safaaraddan gacanta dowladda Soomaaliya. waxaan soo booqannay maanta nimada safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi. safaaraddan horaantii 1970 ayaa dowladda Soomaaliya ay yeelatay mudday gacanta ka maqnayday oo niman hore u jooga Soomaaliya ay yiraahdeen waa iibinay. dadka Soomaalida ah ee magaalada Nairobi ku nool iyo dalka Kenya guud ahaan iyo dowladda Soomaaliya diblomaasiyiinteeda halkan jooga iskaashaday mar hore iyo mar dambaba ayaa waxay suurto geliyeen gurigan inuu gacanta ku soo noqdo oo u soo noqdo dadka Soomaaliyeed. intaa kadib haddana dadka Soomaaliyeed ee degan dalkan Kenya magaalada Nairobi iyo dowladda Soomaaliya iskaashanaya ayaa haddana dayactirkeeda haddana dib u bilaabay. dhulka baaxadiisa intuu la egyahay waad aragtaan, dhismaha ka socda iyo maxaan ku rahdaa dib u qabaynta ka socotana waad aragtaan. waxay noqon doontaa mid ka mid ah safaaradaha Soomaaliya ay leedahay kuwa ugu waaweyn ee caalamka ku yaalo iyo safaaradaha magaalada Nairobi ku yaala ajnabiga la sidoo kuwa ugu waaweyn ay safaaraddan ay ka mid tahay dhul ahaan iyo dhismo ahaanna waad arkaysaan gurigan sida uu guri muhiim u yahay. waxaan rabaa marka halkan inaan magacayga iyo magaca dowladda Soomaaliya anigu mahad celiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay sanadihii dheeraa oo dacwada ay socotay oo dhulkan gurigan sidii loo soo celi lahaa iyo haddana inta isku tagtay is abaabushay dhaqaale isku dartay in dib loo dhiso haddana ka shaqaysay aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin. looyaradii Soomaalida ahaa ee reer Kenya iyo kuwii kale ee reer Kenya lafsadooda sanado badan ayagoo aan lacag la siinaynin u dacwoonayo dhulkan oo daba taagnaay xaqdarradaasi si looga gudbo ayagana waan u mahad celinaynaa, aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa. dadka Soomaaliyeedna abaal badan ayay idin hayn doonaan leenahay. dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin ha ogaadeen in wixii dawladdu ay lahayd oo ummadda Soomaaliyeed ay lahayd sanooyin kasta oo badan ha ka soo wareegeen ee lumay in la daba socdo oo maalinba mid baa la soo celi doonaa. safaaraddan waa ka mid kuwa yow kaloo badan oo caalamka ku yeelay oo la qaatay ama si qaab daran loo deganaayo oo waxaan ku Yurub iyo meel walba ku yeelay yaa dawladdu soo celisay. kuwa kale maxkamada ayaa hadda ay taagan yihiin dacwadooda socota. marka hantida ummadda Soomaaliyeed ay lahayd ee caalamka ku firarsan oo dhan waa la soo wada celin doonaa haddii alla yiraahdo. danjiraha Soomaaliya oo fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in safaaraddani oo ka mid ah kuwa ugu ballaaran ee dalkan Kenya ka howlgala dhawaan dib loo howlgelin doono. safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa ku guuleysatay in dib loo soo celiyo xaruntii hore ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya oo nin ganacsade ah uu iibsaday. maxkamadda sare ee wadankan ayaa dib ugu xukuntay Soomaaliya xaruntan sanadkii 2010. Yuusuf Sheekh Ciise, SNTV, Nairobi.